wararkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka iyo kuwa beesha Mudulooda oo duulaan xoogan saaka ku qaaday Ruunirgood. Dagaal xoogan oo xalay duleedka Ruunirgood ka dhacay iyo sidoo kale Al-Shabaab oo isaga cararay deegaankaas. Jabka argagixisada iyo beesha waxay u kordhisay howlgalka Shabeellada Dhexe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku tagay Ruunirgood iyo Masaajid Cali Guduud xilli safar qarsoodi ah madaxweynuhu uu ku bixi lahaa. Deegaano kale oo uu tagayo iyo beesha waxay u sii diyaarisay madaxweynaha deegaanadii uu tagi lahaa. Nabad-sugidda Soomaaliya oo wada qorshe ka dhan ah booliiska iyo sidoo kale howlgalladii booliiska oo hoos loo dhigay xilli salaad arrimo waaweyn uu ka dambeeyo. Dagaal xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan xilli gudoomiye Cali Jeeto arrimo la yaab leh ka sheegay. Waare oo sheegay in aysan xal ahayn dadka diidan dagaalka Al-Shabaab, sidoo kalena waxa uu sheegay in la laayo dhalinyarada inay qalad tahay. Arrinta la yaab kale Waare uu ka hadlay gudoomiye Cali Jeeto siyaasiyiinta diidan howlgallada ka hadlay. Qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal u diyaar garooba. Hagaag ciidamada huwanta ee beesha Abgaal ayaa waxay duulaan xoogan ku qaadeen degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaal xoogan ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah duleedka Ruunirgood kaasoo u dhexeeya kooxda argagixisada iyo sidoo kale ciidanka beesha Abgaal. Dagaalka oo ahaa mid saacado qaata ayaa waxa uu dhexmaray ciidamada beesha waxay hogaaminayo Generaal Axmed Cali Sowtire Disho, waxaana ay iska caawiyeen ciidankii argagixisada. Ciidamadan oo duulaan ku ahaa degmada Ruunirgood ayaa ka baxay Cadcadey, waxaana halkaas ay ku tageen howlgalka kadib waxay la kulmeen tacsiirad kaga timid dhanka argagixisada, taasoo argagixisada jab xoogan lagu gaarsiiyay. Dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada Ruunirgood ayaa sheegaya in kooxda argagixisada Al-Shabaab ay isaga baxeen degmadaas kadibna firxadkoodu uu gaaray qaybo kale oo ka mid ah gobolka. Degmada Ruunirgood waxay saaka haweeneysaa iyadoo shacabka ay qaarkood isaga carareen iyagoo ka cabsanaya in dagaalka xoogan ee argagixisada iyo dowladda ku dhexmari kara degmadaas saameyn uu ku yeesho, balse argagixisada ayaa dhufaysyo dhigtay banaanka degmada Ruunirgood halka gudaheeda qaybo badan oo ka mid ahna miinooyin ay ka dhigeen sida wararku ay sheegayaan. Dadka deegaanka ayaa saraakiisha dagaalka xalay ku galay duleedka Ruunirgood waxay u sheegeen in argagixiso badan oo Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada, waxaana dhinaca kale ay tilmaameen in goobahoodii muhiimka iyo saldhigyadoodii muhiimka ay xalay furfurteen. Sidoo kalena kooxdu ay isu diyaarisay dagaal xoogan oo Ruunirgood ay kula dhaggasho ciidanka beesha Wacisle. Dagaalka ka socda Ruunirgood waxaa hogaaminaya oo kaliya Wacisle, waxaana taasi ay muujinaysaa in Abgaal xilligan ay ku kala hareen howlgalka gobolka Shabeellada Dhexe. Marka la eego warsangeli oo askar yar ku leh, waxaa jirta in Galmaax Yoonisi Kabaale iyo sidoo kale Daa'uudba dagaalku aanay qayb ka ahayn. Daa'uud oo degmadoodu ay tahay oo ayna ahayd inay qabsadaan ayaa dagaalka kol hor isaga baxay, taasoo muujinaysa in howlgallada ka socda gobolada dalka ay ku sii socdaan kuwo fashil ah oo xilligan taageeradii madaxweynaha laga sugayay aanay imaan. Dagaalka xoogan ee ka dhacay halkaas ayaa keenay in ciidamada ay isu diyaariyaan in deegaano kale kooxda ay ka saaraan. Waxaana jirta warar sheegaya in xilligan ay haawanayso Ruunirgood xaalad kacsanaan laga dareemayo. Sidoo kale diyaarado dagaal ayaa dul heehaabaya qaybo ka mid ah degmada Ruunirgood. Diyaaradaha Bayraktar TB2 ee Turkiga iyo sidoo kale kuwa droniska ee Mareykanka ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay dul heehaabayeen hawada sare ee degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana howlgalku uu qaadan karaa saacado dheeraad ah iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa huwanta beesha Abgaal ay doonayaan in si awood ah ay ku galaan. Dhinaca kale iyadoo gobolka Shabeellada Dhexe arrintaasi ka jirto, faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo shalay ku dhexmaray shalay galabtii deegaanka Mabaax ee hoos tagta degmada Moqokori gobolka Hiiraan. Ciidamada dib u xuraynta deegaanka iyo xubno ka tirsan ururka argagixisada. Dagaalka waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada dib u xuraynta deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhigga argagixisada ee deegaanka Mabaax, waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiisha ciidanka dib u xuraynta deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkaas Al-Shabaabku ay ku gaarsiiyeen khasaare xoogan isla markaana ay ka dileen 20 ruux, dhaawacana intaas uu ka badan yahay, walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada. Wararku waxay intaas ku darayaan in ciidanka dib u xuraynta deegaanka ay weerarka qorsheysan fuliyeen oo inay dib ugu laabteen fariisankooda, iyagoo sheegay in guulo ay ka gaareen howlgalkooda. Dagaalka shalay galab ilaa iyo xalay ka dhacay deegaanka Mabaax oo hoos tagta Moqokori ayaa ku soo aadaya xilli howlgalladii ka socday gobolka Hiiraan ay istaageen kadib markii dowladda Soomaaliya Muqdisho ay keentay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan oo badi howlgalkaas hogaaminayay. Haddaba iyadoo ay taasi jirto, madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tegaya furimaha dagaalka gaar ahaan qaybo ka mid ah Shabeellada Dhexe.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya inuu saaka u safro magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud isla markaana uu kaga sii gudbo furmaha dagaalka ee aaga Qayb halkaas oo ciidan xoog leh lagu diyaarinayay maalmihii la soo dhaafay. madaxtooyada ayaa labadii maalmood u dambeysay dhowr magaalo oo ka tirsan gobolada dhexe u dirtay ciidan iyo shaqaale ka sii horeynaya wafdiga madaxweynaha, waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu tagayaa degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan Galmudug iyo Hirshabelle. sida ay xogtii noo xaqiijiyeen ilo xogaal ah, madaxweynaha ayaa doonaya in la dardargeliyo dagaalka dalka loogu xireynayo kooxda, wuxuuna dhiirigelin ugu tagayaa ciidamada xoogga dalka ee furmaha gobolada dhexe joogay xoogaga deegaanka. maalmihii la soo dhaafay waxaa gebi ahaanba istaagay duulaanka lagu qaaday maleeshiyada ee ka socday gobolada dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo dhowr tuulo oo ciidamadu ay qabsadeen dagaal la'aan kadib markii ay isaga carartay kooxda. ciidamada dowladda federaalka ayaa sidoo kale dib ugu baxay deegaano kala duwan oo laga qabsaday argixisada oo ugu dambeysay deegaanka muhiimka ee Wabxo dhowr maalmood ka hor ciidamada ay faaruujiyeen. saraakiisha qaarkood ayaa laga soo xigtay in taliyaha xoogga dalku uu bixiyay amarka dib loogu soo baxay deegaanadii laga saaray argixisada, inkastoo taasi aan caddeyn loo hayn. falanqeeyaal amni oo badan ayaa sheegay in arrintan ay ugu wacan tahay xeelad la'aanta dhanka dowladda iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqda mid aan muhiimad gaar ah siinayn howlgallada ka socda gobolada dalka, waxaana madaxweynaha xilligan uu doonayaa in howlgalladiisa uu ku saaro deegaanada dhowr oo uu tagayo. madaxweynaha waxa uu si gaar ah u tagayaa Baxdo, waxaana intaas kadib uu tagi doonaa Dhuusamareeb, Gaalkacyo iyo magaalada Beledweyne. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisa Galgaduud kadib gaari doona gobolka Hiiraan, goobihii dhawaan argixisada laga saaray, waxaana uu kurgali doonaa xaaladda dhabta ee deegaanadaas, waxaana uu ugu sii horeeyay Hiiraan madaxda Hirshabelle. wararka aan helna ayaa sheegaya in suuragal ay tahay in madaxweynaha safarkiisa uu ku daro Shabeellada Dhexe, balse si rasmi ah looma xaqiijin maadaama weli Shabeellada Dhexe qaybo badan oo kamid ah furmo dagaal ay tahay oo aysan ciidamada ku dhiiran kareyn in madaxweynuhu halkaas ay geeyaan. hagaaga Waare waxa uu sheegay in aysan xal ahayn in la laayo dhalinyarada argixisada. madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in xalku uusan ku jirin in la laayo dhalinyarada ay qaldeen hogaamiyaasha argixisada, balse Soomaaliya laga rabo inay xal u hesho sidii loo badbaadin lahaa tirada ugu badan ee dhalinyaradaas. madaxweyne Waare oo wareysi siiyay TV-ga Universal ayaa sheegay in dagaalka argixisada uusan ka dhammaan doonin ilaa la laayo dhalinyarada ka tirsan kooxda. wuxuu saadaaliyay in ay suuragali doonto in la soo badbaadiyo inta badan dhalinyaradaas oo dhaqan celin loo sameyn doono halka hogaamiyaashii qaldan la dhaleyn doono sida uu sheegay. si gaar ah Waare wuxuu carabka ku dhuftay Cali Dheere oo ah afhayeenka argixisada, isagoo ugu goodiyay in Cali Dheere uusan ka baxsan doonin dunuubta uu ka galay dalka. qof kasta oo caqli ah waa uu fahmayaa dhalinyarada la qalday ee la wada laayo inaysan ku dhammaan doonin xal aysan ahayn, waxaa ku dhammaan doonaa in lasoo dhaqan celiyo oo bulshada lagu soo daro. madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa wareysigan ku sheegay in hogaamiyaasha kooxda aan lagala tashan doonin sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada argixisada u dagaalamaysa, balse xalku iman doono marka la laayo amiirada. haddii hadalkii Cali Dheere jilic laga dareemay jabka gaara ayaa ka turjumaya, laakiin Cali naxariis uma hayno waa nagula gaara ayuu hadalkiisa kusii daray. Waare ayaa ugu dambeyntii wareysiga qaybta kale ku sheegay in dowladda loogu baahan yahay inay ka fikirto sidii dhalinyarada Al-Shabaab ugu badan loogu badbaadin lahaa iyadoo aysan wax ixsaan ah loo sameynayn horjoogayaasha iyo sidoo kale kuwa awaamirta bixiya. gudoomiye Cali Jeete Cusmaan waxa uu ka hadlay howlgallada gobolka isagoo sheegay in siyaasiyiinta howlgallada diidan ay tahay in talaab laga qaado. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa ka hadlay howlgallada ka dhanka argixisada ee ka socda gobolka Hiiraan, ujeedka safarka uu ku yimid Muqdisho iyo guulaha la gaaray. gudoomiyaha ayaa ka hadlay siyaasiyiinta dhaliilsan ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xiraynta gobolka Hiiraan ay ka wadaan dagaalka ka dhanka argixisada. waxa uu sheegay inay qalad tahay in xilligan dad gaar ay diidan yihiin howlgallada lagula dagaalamayo argixisada, isagoo ugu baaqay in saf lasoo wada galo si kooxda argixisada lisaga saaro. siyaasiyiinta diidan howlgallada ciidamada maxuusleyda waa dad waalan oo u shaqeeya Al-Shabaab. xaqiiqdii sidaas ayaan oran karaa, ma Al-Shabaab ayaa xilligan loo caawiyaa mise Al-Shabaab ayaa la taageeraa, ayuu hadalkiisa kusoo xiray Cali Jeete Cusmaan. nabadgelyo.